Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal, meel kastoo ka joogtiin dunida daafeeda. Magacaygu waa Axmed Faarax. Halkaa nagala socotiinna waa Himil High School iyo sidoo kale Himil Amidi Production. Saaxiibayaal, ku soo dhawaada cashirkeennii shanaad ee softwareka lagu magacaabo Adobe Audition. Haddaba saaxiibayaal, cashirkeenna shanaad waxaanu ku baran doonaa sida softwarekan codadkii aan ku soo hagaagsanay in muddaan aan kusoo guda jirnay aan u seefalayn. weliba sida codka looga dhigto mp3 saxa ayaanu ku baran doonaa. haddaba si aan ugu guda galno cashirka oo dhammaystiran u diyaar garow muuqaalka oo dhammaystiran. hagaag saaxiibayaal, ugu horreyn waxaan samayn doonaa cod ayaan duubi doonaa, waan jarjari doonaa, kadibna waxaan samayn doonaa inaan seef garaysto oo weliba kombyuutarkayga aan ku shubto, awoodna u leeyahay inaan qof kale u diro ama maaragtay aan barta aan kule YouTube, Facebook, meel kasta oo raba markas inaan soo dhigo inaan dhigi karo oo codka mp3 saxa u yahay ayaan awood u leeyahay. bal haddaba aan marka hore codka duubo. hagaag recordinga markaad ku dhufatid tan waa isla wada naqaanaayo waxaa nagala rabaa codka inaan magac ula baxno. ani waxaa ula bixi doonaa lesson 5 maadaama ay tahay cashirkeennii shanaad ee softwareka Adobe Audition. recordingkii hore iyo wayga bilowday oo markii aan kilig siiyey magacna u yeelay isla markiiba waa uu bilaabay. hagaag haddaba maanta shaqadeennu halkan ayay ka bilaaban doontaa. assalaamu calaykum. soo dhawaada saaxiibayaal, meel kastoo ka joogtiin dunida daafeeda. magacaygu waa Axmed Faarax. halkaa nagala socotiinna waa Himil High School iyo sidoo kale Himil Amidi Production. saaxiibayaal, ku soo dhawaada cashirkii shanaad ee softwareka lagu magacaabo Adobe Audition. haddaba cashirkeennan waxaynu si fiican ugu baran doonaa qaabka loo seefto codadka markii aad diyaarsatid iyo dhidgareedid naqshadeydid qaabkii ayagoo mp3 ah aad u seef garaysan lahayd si aad dhowti meeshii aad rabtid aad u geysatid. haddaba si aan u seef garayno muuqaalka, haddii ay tahay markii ugu horreysay muuqaalka soo gaaray muuqaalka leeg saar, sina share garay si asxaabada u faa'iidaystaan. haddii aad nagala socotid dhanka YouTube-ka ha naga hilmaamin inaad kanaalka subscribe saartid si muuqaalku oo markasta kugu soo dhaco, kadibna fura gambaleelka. ku mahadsanid daawashada. hagaag saaxiibayaal, waxaan samayn doonaa hadda markaa keliya codkan aan duubay ayaan edit garay doonaa ama hagaaji doonaa, kadibna waa seef garay doonaa waxaas la tegi doonaa desktop computerka dhowta xagga ayaan beli ka dhigi doonaa. qaabku noo noqday iyo sidoo noogu shaqeeyana xagga ayaynu ku arki doonaa. haddaba bal marka hore codka aan hagaajino. assalaamu calaykum. soo dhawaada saaxiibayaal, codka qaybtan hore in wax sababtaas kaaga jaraya waxaas isweydiimayno sababtoo ah cashirka horreeya aan uga soo hadalnay. haddii aad cashirka soo daawana cashirkaas soo daawo. qaybtan hore iska sheeka ayay ahayd, laakiin cashirkaygu wuxuu ka bilaabanaa assalaamu calaykum taas. assalaamu calaykum taas wixii ka horreeya marka waan iska jari doonaa si hadhowtu muuqaalkaygu oo assalaamu calaykum uga bilowdo. hagaag assalaamu calaykum. soo dhawaada saaxiibayaal, meel kastoo ka joogtiin dunida daafeeda. magacaygu waa Axmed Faarax. halkaa nagala socotiinna waa Himil High School iyo sidoo kale Himil Amidi Production. saaxiibayaal, ku soo dhawaada cashirkii shanaad ee softwareka lagu magacaabo Adobe Audition. hagaag haddaba saaxiibayaal, halkas markii aan mara haddii waqtiga uu ii saacidaana waa sii wada jarjari karaa, haddii uusan waqtiga uu saacidayna dhib ma lahano intaa ka dambeedo waa iska sii jari kartaa sababtoo cashirka haddii aad sheegtay waxyaabaa kasii dambeeya waa iska cashirkii iyo waxyaaba lagu baranayay iyo sheekooyinkaas waa haddaa rabtid intaas ka dambeedo waa iska sii jari kartaa. marka aniga hadda maadaama aan boobsiina waqtigu uu ii kooban yahay qaybtan yartaa ee hordhaca keliya ayaan seef garaysan doonaa. assalaamu calaykum. soo dhawaada saaxiibayaal, meel kastoo ka joogtiin dunida daafeeda. sidoo kale waxaan hawada ku cuni doonaa meelaha spacekan badan ayaan ka jari doonaa si codkayga dhowti oo u noqdo wax ka yar 1 minute ama 1 minute ba sida u noqdo meelaha spaceka ayaan ka jari doonaa. xasuusnaa 5 space oo isku tagto ayada ayaa wixii buuxinaysaa 1 minute. marka meelahaas spaceka inta badan waa la iska saaraysaa waxaaba waqti gaar ka cuni. saaxiibayaal, hadda codkaygu waa uu ii diyaarsan yahay. si aan codka u seefto laba weyba waan mari karaa, inaan export yiraahdo iyo inaan save as yiraahdo. haddaba si bal aan labadooda u aragno waxaan ku dhufa doontaa halkaas ay ku qoran tahay file markaa ku dhufatid export waa dhihi kartaa, kadibna waxaa dhihi kartaa file, kadibna waxaad sii dooran kartaa locationka lagu dhigaa codka dhowta lagu dhigaa, taas waa samay kartaa. taas markii aad sameydid waa qowey. haddii aad rabtidna waxaad dhihi kartaa isla fileta ayaad ku noqonaysaa, kadibna waxaad leedahay save as markii aad raadid ayadana waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay browser. muuqaalka haddii aad rabtid maqalka haddii aad rabtid inaad cod ka bedeshid waad ka bedelaysaa oo haddana lesson 5 ay u qoran lesson 6 waa ula bixi karaa. kadibna wuxuu ku leeyahay horta waxaa soo doortaa locationka lagu dhigaa codka. aniga waxaan leeyahay desktopkii dhig, weliba wax magacana maaragtay file gaara lama geli doono desktop bis dhigaa leh. xasuusnaa markaa meeshan waa meesha ugu badan ee errorka uu ka yimaado. haddii hadda aan save iska iraado muuqaalka dhowti iima shaqayn doono wuxuu iga noqon doonaa sib.
haddaba si aan zipka uga saaro waxaa soo furtaa qaybtan hoose halkan ay kugu qoran tahay wave bc halkan kugu qoran tahay ayaa soo furaysaa kadibna halkan hadda waxaa kugu qoran wave bc waxaa doorataa keliya mb3 dooro waxaa ujeedaa meesha waxaa soo gashay mb3 audio mb3 kadibna waxaad tirahdaa save markaad tirahdid weli waxba laguma siifin markaan ayay hawshu bilaabanaya keliya waxaa lagaa rabaa inaad tira okay aqbal iyo guddoon hawshaani waa isku dhamaatay hadda marka waxaan ka bixi doonaa qaybtan oo waxaan aadi doonaa desktopka computerka halkan waxaa ka raadi doonaa meel ku qoran tahay lesson 5 haddaba lesson 5 waa kanahay belay ayaan dhigi doonaa saaxiibayaal si aad ila aragtiin asalaamu calaykum soo dhawaad saaxiibayaal meel kastoo ka joogtiin dunidayda daafeed magacaygu waa axmed faarax halkaan nagala socotiinna waa himila high school iyo sidoo kale mila media production saaxiibayaal kusoo dhawaada cashirkii shanaad ee softwareka lagu magacaabo Adobe Audition hagaag saaxiibayaal waxaa ujeediin codkii waa ii kana waa ii mp3 qofkaa raba ayaan ku diri karaa waan dhegeysan karaa muuqaalkaa raba ayaan ku diri karaa waana mid nadiifa haddaba meesha aan kasoo dhigaynay mp3 marka hore noo doorneed wave bc da meesha noo doorneed markastaa xasunaa qaybtaas inaa iska sacday muuqaalkanu maanta intaas ku egyahay haddii taa markii horeysa muuqaalka soo gaaray muuqaalka leegsaar sina sheergaraysi asxaab badan uga faa'iideystaan haddii ay jirto wax su-aal aad ka qabtay muuqaaladan iyo muuqaaladii hore aynu soo qaadanana qaybta hoose commentiga inagula wadaag markastaa waan kaaga soo jawaabi doonaa intaa gaari doonaa casirka xigana waa dhammaantiin oo dhammaantiin idin leh isma dhaaf